كهذا قدرك كواد أنا شغال أنا عن كهذا وحويان ودكتينو وديال يمدح دقماديو يحقرت كين كول كعوض أي واحد شغل مدب ويك يدير هذا مقالة هرقيسة قرال هذا قطدر أي صوب بندقين وعبشوينا يو كعبشين يا سام قيبسي الصومالي لان runtii waxaan xukuumadda ku boorinayaa in ay aanay dhayalsan arrinkaasi ay odayaasha codol ka hadleen qoraal bay ku soo gudbiyeen meesha waxa yaalay numbers bay yaalay sida ay u janjeedho saami qaybsiga Somaliland runtii aan arrin kala dhayalsan waa arrin muhiim weeyaan waan ku taageersanahay odayaasha codol ka soo jeeda in ay cabashadooda soo muujiyaan si sharaf leh oo wanaag leh oo xushmad leh u soo muujiyaan waxa la yahay Somaliland madaxweynuhu iyo xukuumadduba waa in arrinkan aan dheelsan halkeeduna ma ahayn guddi loo saaro waa in madaxweynuhu gacanta ku qaabsada oo yiraahdo aniga ayaa arrinkan ka dhabaynaya arrinkan ana ka shaqeynaya arrinkan waa inuu habeen iyo maalin ka shaqeeya waa ogtihiin shaqaaqa badan bay naga furan dhinaca bariga Somaliland oo arrinkaas cabashadeedu uu inoo keenay ومهم وأنا كبورني يوم مركلة أضياش أوضل نوان وان تاجر سنة أيام لي أريك اللبات أنا وياه حسبي هم حسبي يقعد هرنا وأوجه هذا لي أو قدامي حسبي كهذا قدامي كحجين كسد حالي على جوري وكهذا مشرح كحجين أيا كهذا عبد الرشيد حسن مطان ما أنت أنا جاي كهذا يقول تاجر سنة رجاس أريك اللبات يعني شعال هاي وحويان شرط ولد وحشر صحافيات فقبتي وزير كرمها جدها Somaliland وكهلا يرمها ديوان جليد رنتي أب من الله يعمل هذا الله كسوي لي محايا لي وزير ك وأد مدة قاب حقيقة آليات وفق إن أحيانا مدة Somaliland وتضح كلا قرنا هي وأن مارتي شخص حافظ لجو ذلك ودكتي هنا مال أنا كنري أما معرفة وكيري وديدين ديوان قلنت مدني قاعد متشر وأنا تاجر سمح بنا لكن لا صعبة ديوان قلنت مدني قاعد سيد الله ولا يديدنا ما ديدنا يدا سيد الله ولا إيو أجندها سيد اللدون إيو إن إلا وخا خول ديوان قلنت أضبحياش يديدنا ودكتي هنا ديوان قلنت مدني وحيا حيد إلا ديوان قليو dadka u dhashay reer Somaliland qoyska oo dhan leeyna waxay qaataa waqti fara badan waqti badan baa la geliyaa halkii ay ka ahayd arrinka uu sida ka ahaa ayaa diiwaan gelintii madani hadgeegeedu waa la bedelo imika waxa la yiri diiwaan gelinta madani waxay noqonaysaa wixii 16 ka yar ayuu baaba kaar la siinaya taasi diiwaan gelin madani ma aha waa kaar baa la siinaya kaarkaana waxa la doonayaa in lagu shaqo qodo doorashada soo socota oo cod bixiyaasha kaarka cidda siino baadana galaysa diiwaan gelinta adeed ka yeelmayna taas ma ogolaanayno diiwaan gelinta cod bixiyaasha waxa ka shaqeeya commissionka ayaa ka shaqeeya oo dhaxdhaxaad oo ah xisbiyada qaranka ee dadka tartamaya adigu dad aad noo soo walwalaaqatay iyo idyo adigu soo samaysatay tartan lagu la gelay misid mana ogolaanayno doorashadaas waxaan idin sheegaynaa baasaboorro ayuu dadka u ballan qaaday wasiirka dakhliga oo uu xajka ay ku tagayaan hadaba mudana wasiir waxaan ku leeyahay dadku waxay u baahan yihiin baasaboorrada adigu ballan qaaday xilliga xajka oo imika taagan waxbana ma soo dheeli farkaray waxbana ma adkeen imika ID baad ka hadlaysaa dadku ID ma baahne baasaboorro ay u baahan yihiin ay dibadda ku tagaan oo dhibaatooyinkooda iyo hadii caafimaad ay noqoto iyo hadii wax kale too ay noqoto ay u baahan yihiin waxaan leeyahay tii aad ka sheegtay mudana wasiir aad ka hadlaysay deeq bixiyaasha أتريد العقل وما هي ديوان قلنت عض بحياش تاس أدر رنتي أدر حقيقة ويكفوكتها عض بحياش هو كل ما أنت بودي نويمد وين يجي الله كلنا وأنا يحس بيض أي لوضة كل ما أول بيجي العقد إني قبل حنشري مال أكوي هذا العقد ضدكم ما هي إنه أدر ما تشوف الدين الرجال إنه ما هي التيفي اللي لسه يستعجل وحقيقة وكفوك معه ده بحياش وكل وحنيدها هنا العقد ونديها هنا وكل كهذا قداميها برلمان حتى وكل كهذا قداميها حسب العدوى كي هرب بحضر وحويان أرن كان هو أرن الإسلام وذا كرتي أديك اللفتر كاجو جزعات وزير مرة رأيت آيات صحيحة ذي وحن أن يكون كلامي وحي أدو بلان قاضي آيات صحيحة ذي صدق بلاد كور أيضا مكدر دب بدرسة أو تشاور الدرسة وحويان ده بحياش يجا أول جود العقد اللي قبل حين شيء ديوان قليته
وديار بين دويهين واحد باتانا ما جرتو لكن waxaan ku sheegayaa doorashada soo socota marna noqon mayso in dib loogu dhigo sababtoo oo ah waxaad doonaysaa mashruucan diiwaangelinta madaniga ee aad bedeshay maaha diiwaangelinta madaniga ee aad bedeshay inuu noqdo mashruuc lagu jahwareerinayo diiwaangelintan codbixiyayaasha fadlan yaan saay naga noqonin khalkhalayna gelinina waxa aan loo habboonayahay ayaynan ka hadlin waad ogtihiin 4 sanadood iyo badh baa fadhiyay madaxa xukuumadda kulmiyadiin 4 sanadood iyo badhkaasi wixii aad ka shaqeyn weydeen waxaad markii ugu dambeysay ee diiwaangelinta codbixiyaasha loo bixinayo aad u tiraadaan waan wadaynaa anigu waxaan u aragnaa tactics ama xeelad la doonayo in doorashada dib loogu dhigo taasina ummadda ka yeelmayso ummaddu way daawanaysaa way idin samraysaa haw qaadanina inaad fulgarayn kartaan ama aad khiyaameyn kartaan yaana idinku noqonin mar quraata ummadda idinku kicin fadlan dalkana ay naga khalkhalniga doorashadii iyo hanaankii dimuqraadiyadeed ee laynooga bartay ee caalamku inooga bartay ee dadbixiyaasha lacagtay nagu siinayeen yaynaan jahwareerin tan madaniga haddaad doonaysaan anigu waxaan ku talin lahaa in sideedii loo sameeyo marka hore loo sameeyo maaha wax imanka degdeg ah laakiin inaad labada diiwaangelinood aad isku dhaftaan tiina wata laakiin diiwaangelinta codbixiyaasha u ogolaada inay sideeda u socoto oo commissionku inoo wado labada xeer ee baarlamaanka qabiil qoraalka ahna waa inay sidoodii kala ahaadaan sababta xeerka diiwaangelintu waa mid hore u jiray lahaa oo aynu qabiiltirayno laakiin xeerka madanigu waa mid cusub daadee wax hore u jiray iyo wax cusub madaxa la isu gelin kara maayo waxaan jecelahay qodobka saddexaad aan kusoo gabagabeynaya aan ka hadlaya waxa weeyaan waa arrinkii maalin dhaweyd waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay tiri maadana shirkadaha ka qora shidaalka Soomaaliland waan dacweynaa ama waan dhibaataynaa fadlan waxa la reer Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya dhibaatooyin idinku filan waa haysataa magaalada Muqdisho inaan nabadaysaan ayaa idin taala ee ina Soomaaliland iyo macdanteeda iyo dadkeeda inaad ka shaqeysaan idinma taalo dadkuna ma wanaagsana in la isjiijito la isku guftiso khayr baan idin rajaynaynaa Muqdisho nabadeeya umadiina u shaqeeya laamiyo sameeya waxa uu sameeyay anigu shidaalka iyaga iyo Soomaaliland iyo hawleeyda annaga wadanayna arrinkaas arrin ka soconayana maaha dad khayrna waa idin rajaynaa wassalaamu calaykum warahmatullahi shirkadda waxa la hamiyada DNO waxa kamid tahay shirkadii Soomaaliland la galay sahaminta heshiiska shidaalka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri toosan dacwad uga furnaa iyaga arinta xisbi ahaan sababtoo ay xukuumadda Soomaaliland ilaa hadda si waafiyo uga mahdan marka laga yimaado wasaaradda macalinta iyo tamarta war saxaafadeed kooban oo arintaasi jawaab noqonaya ka socotay xisbi ahaan sababtoo anagu waxaan u aragnaa in marnaba aan gurgurta gali karin madaxweynaha Soomaaliya uu riyoonaya rag badan horeeto way uga hadleen Soomaaliland kama taliyo arrinkeeda kama hadli karo dalkii Soomaaliya ayaa laftirkiisa gabigiisa ka wada tan iyo koonfurti Muqdisho aanu ka wada talin marka waxa uu wanaagsan in Muqdisho iyo arrinkeeda galo shirkadana waxa la wuxuu ku haystaa ma jirto jurisdiction bay leedahay Soomaaliland waa looga Soomaaliland sida ay ahay sida ku timid waa looga laba dal oo isku darsaday labada ay ahaayeen 1960kii mid walba xorriyadiisa si gaar ah ayuu helay dadka reer Soomaaliland oo ka go'aantay qarannimada Soomaaliland madaxweynaha oo xamar fadhiyo oo xamar ma nabadeyn kari waayay baal xaftidiisa waxa